casharkan waa casharkii sideedaad waxaan kaga hadli doonaa waxa loo yaqaano magnetic force ama birlaabta xooggeeda. casharkan wuxuu la socdaa casharkii hore oo aan kaga hadlnay birlaabta. fadlan fiirso casharkaas si casharkan aad ula socoto. haddaan ku laabanno waxa la yidhaahdo magnetiska. magnetka wuxuu leeyahay north iyo south ayuu leeyahay ama waqooyi iyo koonfur. waxay leedahay quwad loo yaqaano magnetic field. waxa ayna ka tagaan northkay ka tagaan magnetic fieldkaas waxayna aadaan dhinaca southka ama koonfurta. quwaddaas waxa ay ku badan tahay labada pole ama labada madax ee leedahay magnetku ama northka ama southka ayay ku badan tahay. markaa cabirayso magnetic fieldka markaa cabirayso waxaa lagu cabiraa waxa la yidhaahdo tesla. teslana waxaa loogu magac daray ninkaa la yidhaahdo Nikola Tesla oo loo yaqaano aabihii electricityga AC especially waxa loo yaqaano alternate current ayuu ninkaa waxa uu ka qabtay shaqo xoog leh ayuu ka qabtay. calaamada ama symbolka lagu garto magnetic fieldkana waxay tahay capital B wada weyn waana tan lagu garto. markaa cabirayso magnetic fieldka markaa cabirayso quwadeeda markaa cabirayso waxaa la isticmaalaa Tesla sida hore usoo sheegay. Teslana waxa ay ka taagan tahay newtons per second per coulombs meters ayaa lagu cabiraa. haddii aan ka hadalno adduunka magnetic fieldka uu leeyahay sidan casharkii hore kusoo sharaxnay adduunka wuxuu leeyahay magnetic field. magnetic fieldkaasna waxa uu ku badan yahay labada pole oo northka iyo southka ayuu ku badan yahay. markii la cabiray waxaa la ogaaday adduunka equatorkiisa oo ah meesha kala jirta adduunka oo Soomaaliyana ay ku jirto waxay tahay 30 microtesla waa 30 microtesla. markii la fiiriyey northka iyo southka la fiiriyeyna waxay noqotay 60 microtesla. marka waxay ku badan tahay sideedaba magnetic fieldka waxa uu ku badan yahay labada pole oo northka iyo southka ayuu ku badan yahay. marka su-aasha waxay tahay maxay tahay magnetic forceku muxuu yahay? magnetic forceka waxaa lagu magacaabaa waxa la yidhaahdo Lorentz force. Lorentz forcena waxaa magacaas loogu magac daray ninkaa la yidhaahdo Henrik Anton Lorentz oo u dhashay waddanka Netherlandka ama Dutch physicist ah. Dutchna waa waddanka uu ka yimi oo physics ka bartay. 1902 ayaa ninkaa waxa uu ku guulaystay waxa loo yaqaano Nobel Prize-ka wuxuuna ku takhasusay markaa physicska ayuu ku qaatay. ninkaas ayaa ahaa dadkii ugu horreeyey oo fahma magnetic fieldka ama magnetic forceka quwadeeda sidii aan ku fahmi lahayn. marka su-aasha waxay tahay haddii charge sidaa la socotaan chargekana ama wuxuu noqon karaa positive ama negative. waxaan ku qaadanay casharka electricityga ahaa. chargeka oo proton ah haddii uu maro laba magnet of leh magnetic field force leh haddii chargekaas uu dhex maro maxay tahay quwadda uu dareemi karo ama forceka uu dareemi karo ama xoogga uu dareemi karo. marka taas ayaan casharkan kaga hadli doonaa. chargeka markii uu maro magnetic field uu dhex maro wuxuu dareemi doonaa force ayuu dareemi doonaa ama xoog. xooggaas sidaa u jeedaan 3D-ga ah magnetic fieldka wuxuu ka tegayaa northka wuxuu aadayaa southka. markii uu chargeka maro gudihiisa uu maro chargeka waxaa ku dhacaya in uu directionkii ama meesha u socday ama jihada u socday inay isbedesho. sababtan waxay tahay magnetic fieldkii quwadeedii ayaa bedeshay. marka chargekaas waxa uu dareemi doonaa xoog ayuu dareemi doonaa ka imaanayo magnetic forcekaas. xooggaas markaa rabta inaad cabirto waxa uu leeyahay formula ama equation ayuu leeyahay. equationkiisa wuxuu yahay force bna waxay ka taagan tahay magnetic field. sometimesna dadka waxay ugu magacaabaan magnetic flux density waa isku wada meeshii. marka magnetic fieldki waxa uu la mid yahay q waxay ka taagan tahay chargeka waxaana lagu cabiraa coulombs sida casharadii hore aan ku qaadanay. v waxay ka taagan tahay velocity
calaamadda falaarta ah korkiisa saaran waxay ku sheegaysaa inuu yahay vector. Vectorkan sidaa la socotaan wuxuu leeyahay wax la yiraahdo scalar ama magnitude, quwad ayuu leeyahay, iyo direction ama angle ayuu leeyahay. oo calaamadaasna waxay ka taagan tahay cross multiplication oo lagu dhuftay b oo ah magnetic fieldki. marka important waxa inaan fahamno velocity-ga markii uu charge-ka uu dhex marayo magnetka marayo waa inuu perpendicular ku yahay, waa inuu angle-ka ka dhaxeeyo magnetic field-ka iyo velocity-ga angle-ka ka dhaxeeyo waa inuu yahay 90 degree. hadduusan 90 degree ahayn uu charge-ka uu parallel uu leeyahay magnetic field-ka ka imaanayo magnetka, hadduu parallel yahay uu dhinac socdo marka force ma jirto. the only way marka keliya uu charge-kaas uu force dareemayo waxay tahay waa markii velocity-ga uu ku socdo ama orodka uu ku dhex marayo magnet field-kaas inuu noqdo 90 degrees inuu noqdaa. marka tan waxay ku leedahay if velocity is parallel hadduu leeyahay with the magnetic field, hadduu parallel leeyahay force-ku waa zero. wax force ah ama wax xoog ah uu dareemayo ma jirto charge-kaas. haddii velocity-ga ama orodka uu ku socdo uu leeyahay perpendicular uu leeyahay oo 90 degree uu la sameynayo magnetic field uu la sameynayo, marka force-ka waxaa lagu helayaa q oo charge-ki oo lagu dhuftay velocity-gi oo lagu dhuftay magnetic field-ki. markay velocity-ga iyo magnetic field-ka ay yihiin 90 degree yihiin, formulahaas ayaan isticmaalaynaa. marka formulaha waxa uu noo sheegayaa force-ka oo magnetic field-ka wuxuu yahay q oo lagu dhuftay v oo lagu dhuftay b like a boy oo lagu dhuftay times the sin theta. haddii uu velocity perpendicular ku yahay magnetic field-ka wuxuu noqonayaa 90 degree markaa sinkiisa aan raadsana 1 ayuu noqonaya. marka formulaha waxay isugu soo biishubanaysaa q oo v lagu dhuftay oo b lagu dhuftay sin 90 wuxuu noqonayaa 1. marka taas ayaa lagu helaa, formulahaas ayaa lagu helaa magnetic field-ka. si aad u fahamto charge-kaas magnetic field-ka dhex marayo force-ka uu dareemayo waxaa jirta wax la yiraahdo right hand rule-ka waxa uu kuu sheegayaa inaad gacantaada right hand-ka ah aad isticmaasho. farta suulka waxa uu ku tilmaamayaa force-ka uu leeyahay, charge-ka force-ka uu dareemayo ayaa la yiraahdaa loo isticmaalaa suulka. farta ku xigto waxay kuu sheegaysaa velocity-ga meesha uu aadayo, meesha u socdo. farta dhexena waxay kuu sheegaysaa magnetic field-ka meesha uu ka jiro. angle-ka aan ka hadlaynay oo tiitada ahaa wuxuu u dhaxeeyaa velocity-ga iyo wuxuu u dhaxeeyaa magnetic field-ka. velocity-gana waa socodkii uu ku socday ama orodkii uu ku socday charge-ka ayuu u dhaxeeyaa. haddaan rabno inaan isticmaalno waxa loo yaqaano right hand rule-ka, haddaan rabno inaan isticmaalno oo aan u isticmaalno waxa loo yaqaano magnetic force, si aan u ogaano xoogga uu dareemayo charge-ka markii uu marayo magnetic field-ka ama quwadda ay leedahay magnetka ama birlaabta. waxaa jirto laba nooc ayaa jirto. nooca koowaad waxaa leeyahay circle oo x leh. markaad taa aragto taa waxay ku tilmaamaysaa magnetic field-ka b points into the screen or the page. wuxuu ku point gareynayaa oo kuu sheegayaa dhinaca wuxuu kaa aaday oo uu kaa jiro shaashadda ama page-ka uu kaa jiro. marka sidaa u arkayso waxay tahay maadaama ay ku tilmaamayso magnetic field-ka uu ku tilmaamayo, tan waxay aaday dhinacaas hoos ayay aaday oo yacni dhinaca waxay u jeedaa screen-ka aad fiirsanayso ama warqadda. tan kale waxay ku tilmaamaysaa midda circle-ka leh. waxay ku tilmaamaysaa the magnetic field b points out from the screen or the page. yacni waxay tan ay ku tilmaamaysaa adiga oo magnetic field-kii uu ku soo aaday adiga wejigaaga uu soo aaday, macnaha adiga ayuu kugu toosan yahay ama screen-ka ayuu ka soo baxayo aduu ku soo aaday. marka tan waxay noo tilmaamaysaa hoos ayuu aaday oo yacni wuxuu aaday screen-ki ayuu aaday, kana screen-ka ayuu ka soo baxo adiga ayuu ku soo aaday. su-aasha nala warsaday oo tusaalahan waxay tahay magnetic force example ama tusaale. waxaana la yidhi positive charge
danab positive leh is located wuxuu joogaa pointiga a ayuu joogaa waxaana ku wareegsan magnetic field. Magnetic fieldka x-ka waxa uu noo tilmaamayaa in magnetic fieldki uu ku socdo uu aadayo dhinaca screenka ama computerka aad fiirsanayso ama pageka warqadda aad fiirsanayso ayuu aadaya oo yacni waxay tahay magnetic fieldki kan wuxuu aaday hoos ayuu aaday oo yacni warqaddii ayuu aaday. Marka waana stationary oo wax dhaqdhaqaaq ah ma uu sameynayo. Maxay tahay directionka uu forceku u riixi doono? Maxay tahay xoogga uu dareemayo? maadaama aan uu yahay stationary uu yahay macnaha uu taagan yahay uusan dhaqdhaqaaqayn, sharciga wuxuu dhigayaa si chargekaas uu u dareemo xoogga ee leedahay magnetic fieldka ee leedahay waa inuu dhaqdhaqaaqayo. Hadduusan dhaqdhaqaaqaynin waxba ma dareemayo. Marka jawaabtu waxay tahay no magnetic force, wax xoog ah ma dareemayo maadaama uu chargekii uu stationary yahay uusan dhaqdhaqaaqaynin. Tan labaad oo nala warsada waxay tahay a positive charge moves from point A to point B. Positive chargekaas ayaa wuxuu ka tegay point A wuxuuna u socdaa point B wuxuuna leeyahay velocity ayuu leeyahay markaan. Su-aasha marka waxay tahay directionka uu magnetic forceka u riixayo maxay tahay? Maxay tahay quwadda magnetic fieldkan ama xoogga uu dareemayo magnetic fieldkan marka uu dhex maro chargekaas ayay su-aashu tahay. Isticmaal sharciga loo yaqaano right hand rule. Jawaabtu waxay tahay left ayuu naga aadayaa magnetic forceka. Magnetic forceka wuxuu aadayaa dhinacaas ayuu aadayaa. Su-aasha kale waxay tahay positive charge ayaa wuxuu joogaa point A wuxuu u socdaa point B. Directionka uu magnetic forceka u riixayo chargekaas maxay tahay? Maadaama ay circleka dhibicda wadato ay tahay inuu soo aadayo dhinacayna points sida uu tusayo picturekaas oo anagana soo aadayo macnaha magnetic fieldki annaga ayuuna soo aadayaa. Maxay tahay jawaabtiisi? Jawaabtu waxay tahay wuxuu aadayaa right hand. Waxaa chargekaas wuxuu aadayaa dhinacaas ayuu aadayaa. Tusaalahan waxaana la warsaday su'aal. A particle with a charge of 2 microcoulombs is moving at 3 times 10 to the power of 6 meters per second, perpendicular through a magnetic field with strength of 0.05 T. T waxay ka taagan tahay Tulsa. What is the magnitude of the force on the particle? Marka particle marka leeyahay waxaa laga hadlayaa positive charge ayaa oo quwaddiisu ay tahay 2 microcoulomb. Sidaa la socotaan sida casharadii hore ku qaadanay chargeka waxaa lagu cabiraa coulombs. Marka wuxuu qabaa 2 microcoulombs. Micron waxay ka taagan tahay 10 to the power of negative 6. It's moving wuxuu ku socdaa velocity ah 3 times 10 to the power of 6 meters per second ayuu ku socdaa. Marka chargekaas ayaa wuxuu ku socdaa speedkaas ama velocitygaas. Waxa uuna dhex maraya magnet, laba magnet oo magnetic field ayuu dhex maraya. Marka su-aashana la warsaday waxay tahay haddii uu velocitygaas uu perpendicular ku yahay uu leeyahay 90 degree angle hadduu la sameynayo, perpendicularna waxay la mid tahay tida sidaas oo kale oo hoos u jeedo. Su-aasha markana la warsaday waxay tahay maxay tahay forceka ama xoogga uu dareemi doono chargekaas ama danabkaas? Force F waxaa lagu cabiraa newtons ayaa lagu cabiraa. waxaana loogu magac daray ninkii la dhihi jiray Newton. Force waxaa lagu helaa Q times V times B. Q waa chargekii, V waa velocitygii, B-na waa magnetic fieldki. Formulaha sidaa la socotaan wuxuu yahay QVB sin theta. Maadaama velocityga uu leeyahay perpendicular oo 90 degree la sameynayo, sin 90 wuxuu noqonayaa 1. Marka formulaha noo soo hali doono wuxuu noqon doonaa forcekii magnitude-ka ama quwaddii oo lagu dhuftay Q, V and B. Markaan soo qaadano Q iyo V oo aan gelino formulahi ama equationka aan gelino,
kan waa chargekii waa 2 times 10 to the power of negative 6 coulombs oo lagu dhuftay 3 times 10 to the power of 6 meter per second oo ah velocitygii iyo magnetic fieldki b oo quwadeeda ay tahay 0.05 tesla marka intaa isku dhufato waxaa helaysaa 0.3 newtons tusaalahan waxaan soo qaadan doonaa si aan idin tuso chargeka in uu sameynayo force uu dareemayo ayaan rabaa inaan idinku tuso tusaalahan a charge moving in a magnetic field will experience a force chargeka markii uu ku dhex socdo ama uu marayo magnetic field berlab magnetic field waxa uu dareemi doonaa xoog ka imaan doono magnetic fieldkaas marka haddaan soo qaadano battery oo aan soo qaadano magnetkaas oo north iyo south leh oo aan soo qaadano musbaar aan isku rakibno saddexdaas haddaan musbaarka maadaama musbaarka uu bir yahay waxa uu ku dhegayaa magnetka markaan soo qaadano wuxuu ku dhegayaa minuska oo batteriga haddaan fiilo soo qaadano fiiladaas aan ku taabano magnetka waxaa dhacayso chargeka ama korontadii ayaa waxay ka tegi soo raacaysaa fiiladii oo waxay rabtaa inay u timaado dhinaca negativeka marka waxay ku qasbaysaa inay magnetka ay ku dhex socoto ayay ku qasbaysaa maadaama chargeka uu dareemi doono force ka imaanayo magnetic fieldkaas ay leedahay magnetka waxaa dhacayso chargeka in uu dhaqaaqi doono mar hadduu chargeka dhaqaaqo forcekaas ayaa waxay keeni doontaa magnetkana in uu dareemo uu markaa magnetkii uu wareego ayaa dhacayso waxaan soo qaadanaynaa magnetkii waxaan ku rakibaynaa musbaarka waxaan kaga xiraynaa batteriga minuskiisa ayaan kaga xiraynaa marka waxaan kaloo samayn doonaa blaska oo batteriga waxaan ku rakibaynaa fiilada markaan ku taabano fiilada magnetka aan ku taabano waxaa dhacayso current ama charge ayaa wuxuu kasoo tegayaa fiilada marka wuxuu marayaa magnetka ayuu marayaa magnetka marka uu maro wuxuu taraagaraynaya chargekaas inuu soo maro musbaarka gudihiisa negativeka uu kasoo baxo marka oo positive ka yimaado waxaa dhacayso chargeka markii uu magnetka quwadiisa ama xooggiisa uu dareemo waxaa ka dhalanaya forcekaas waxay keenaysaa magnetka in uu wareego marka haddana waxaan sameynaynaa waa ku taabanaynaa sidaa ujeedaan magnetkii waa uu wareegay taana waxaa sabab u ah chargekii oo force ka dhalatay